gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Cabdiraxmaan Shida Bile ayaa maanta xadhiga ka jiray hotel cusub oo laga furay gudaha magaalada Boorama oo lagu magacaabo Cape Town Hotel. xaflad ballaaran oo lagu furay hotelka cusub ee Cape Town ayaa ka dhacday gudaha hotelka Cape Town ee magaalada Boorama. furitaanka xafladaasi oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama, madax dhaqameedyo iskugu jiray salaadiin, cuqaal, imaamyo iyo marti sharaf kale oo fara badan. ayaa ugu horreyn waxa xafladaasi hadal ka jeediyay maamulka hotelka Cape Town iyo qaar ka mid ah madaxda dhaqanka ee ka soo qayb galay xafladda furitaanka hotelka cusub ee Cape Town oo iskugu jiray salaadiin, imaamyo iyo cuqaal. waxaana ka mid ah hadaladoodii kadib markaan aragnay baahida loo qabo lamaanaha oo marka hore ku yaraa Cape Town-ka qaybtiisa hore ayaa qaybtiisa dambe dhammaanteedba ka dhignay guryihii qoysaska lamaanaha ay ku raaxaysanayeen iyagoo madkooda. waxyaabaha aan ku soo ballaarnay qayb caafimaad ah oo imika madaxdu qofay soo socday jidka way aragtaa maraya oo gudaha ay ku leedahay oo dhakhtaradii iyo qalabkii oo dhammaystiran leh ayay gudaha ku haystaan oo ballaarinta ka mid ah xafladda qiimaha badan leh ee horumarka waa intii ay sheegeen intii lagu horeysay. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa mulkiilaha hudheelada mataanaha ee Cape Town ee maanta aan joogno midda dhowrka sare shaqaynay midda maanta la furayo xilkasnimada iyo horumarka uu ka sameeyay magaaladii uu dhashay, kordhinta ku soo koriye bilicda, kordhinta ku soo koriye shaqada iyo shaqaalaha ka shaqeynaya iyo hantida. aad iyo aad baan hadiyadiyo ku mahadnaqaynaa. waxaan leenahay Allah u barakeeyo, waxa weeyaan muxuu ahaa waa dadaal ninkii dadaalaaba ugu gaadhaa in Allah u barakeeyo iyo lagu ducaynaa marka la xigtaa. waxa weeye ma horta waa mid ku dayasho mudano dee wuxuu ahaa qofku bini aadankii waxa weeye inuu wax ku soo kordhiyo oo naafic noqdo waa mid meesha taallo weeyaan. waxa weeyaan dhalinyar soo shaqaysatay iyo soo saartay halkoogii kuma haysatay wadankii wax soo kuwa kalena waa inay ku daydaan oo ninkii soo shaqaystay gacantiisa ku soo galaan waa inay sida inanka ay ku daydaan oo wadankooda soo dhisaan. maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan sharafta badan leh ee lagu furayo hotelka quruxda badan leh ee maanta aynu joogno. ugu dambeynna waxaa xafladaasi lagu furiyay hotelka cusub ee Cape Town hadal ka jeediyay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Cabdiraxmaan Shida Bile oo ku amaanay mulkiilaha hotelka Cape Town hotelka heerka sare ah ee ku dhisay gudaha magaalada Boorama. wuxuuna ka codsaday qurba joogga kale ee ka soo jeeda gobolka Awdal inay ku daydaan mulkiilaha hotelkan iyo kuwa la midka ah ee ka dhisay gudaha magaalada Boorama hoteelada iyo maalgashiyada casriga ah. waxaan leeyahay cid kasta oo yacni munaasab hawl noocan oo kale magaalada ka qabata waan soo dhaweynaynaa. waxaan ku soo dhaweynaynaa wanaagga ay magaalada ku soo kordhisay. inankana waxaan leenahay magacaagii waxa weeye waad buuxisay kii magaalada magaceeda ku qaadatayna waad buuxisay kii ummadda aad maxay ahayd aanay adeegii ay u baahnayd waad buuxisay oo hogaalkii oo qaybo kala gedsan isku jira. dadweynaha kale ee danaynaya ganacsiga ama inay wax qabsadaan ama dibad joogga ama qurba joogana waxaan ku waaninaynaa inay hawlo noocan oo kale ah ku horumariyaan magaalooyinkooda. si kastaba ha ahaatee hotelkan cusub ee Cape Town oo qaybtiisa hore la furay 1 bishii 6 2007 ayaa waxaa maanta la furiyay qayb ka ballaaran qaybihiisii hore oo lagu kordhiyay hotelka Cape Town. qaybahaasi oo qaarkood ka mid yihiin qaybaha ay degaan xaasaska, lamaanayaasha iyo caroosyada, xarwooyin iyo xarun baadhis caafimaad oo lagu magacaabo Calcutta oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khibrad caafimaad u leh dhanka caafimaadka. waxaana hotelkan iska leh ganacsade degan dalka South Africa oo lagu magacaabo Cabdihaadi Xuseen Cilmi. Hashim Sheekh Umar Good, Somali Sat TV, Boorama.